Badhsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay urur ka shaqayn doona caafimaadka guud oo aasaasana ardayda jaamacadda Golis Burco gaar ahaan ardayda barata caafimaadka guud ee bulshada. waxaana munaasabadani ka soo qayb galay Dr. Xuseen Rikoodh, Dr. Walaaleeye Abwaan Cismaan Ibraahim Warsame Hurre Walanwala, Cabdirasaaq Xaaji Siciid agaasimaha madaarka Burco. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada iyo dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka guud ee Burco. ugu horeyn waxaa munaasabadani ka hadlay Maxamed Xadi iyo Barwaaqo Cismaan Aadan oo ka warbixiyay aasaaska ururkan iyo himilooyinkiisa. halkan xafladan waxaa la isugu yimid in ay nagu soo marti qaadeen ururka NGO-ga cusub xafladiisa kaasoo ah ururkii ugu horeeyey ee public health ahaa ardaydii Burco public health ugu horeeyey ay soo diyaariyeen jaamacadda Golis oo ay nagu soo marti qaadeen ururkaas oo magaciisa la yidhaahdo focus loo soo gaabiyo Public Health Community Organization Service. mission iyaguna waxa weeye sidii loo heli lahaa ama loo horumarin lahaa caafimaadka bulshadeena iyo waddankeena Somaliland. markii aanu aragnay bulshada ama gobolkeena Somaliland ama gobolkeena Togdheer xaaladiisa sanitationkiisa ama caafimaadkiisa siduu yahay waxaanu isku qaban qaadanay ardayda ama faculty-ga public health-ga sidii aanu horumarin lahayn ama wax uga qaban lahayn caafimaadka gobolkeena. sidoo kale waxaa munaasabadani hadal ka soo jeediyay Dr. Walaaleeye iyo Dr. Xuseen Rikoodh oo ka mid ah dhakhaatiirta caanka ah gobolka Togdheer waxaanay hambalyeeyeen dhalinyaradani soo bandhigaysay ururkani. dhanka kale waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay Barwaaqo Maxamuud Xuseen, Mustafa Cumar, Jamaal Maxamed Axmed iyo Roda Ayano oo ka mid ah dhakhaatiirta iyo howlwadeenada isbitaalka guud ee gobolka Togdheer. Abwaan Hurre Walanwala ayaa isna dhalintani bogaadiyey kana waaniyey qabyaaladda iyo kala qaybsanaanta. ugu dambeyntii waxaa munaasabadani soo afmeeray halkaasina hadal ka soo jeediyey badhsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer xildhibaan Cabdirasaaq iyo xildhibaan Siciid Axmed Raage oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco. roolka aan ku leenahay caafimaadka ama private health-ga ama public health-ga waxa weeye mas'uuliyadda guud ee degmada ayaa saaran. Axmed Hanad Gurey Baqaye, Somsa TV, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.